برصابك gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Shiine oo weheliyaan kusmaha maayarka magaalada Gabiley xogeeyo fulinta dowladda oo degmada Gabiley iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo waliba mas'uuliyiinta degmada Arabsiya ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo kaabaana lagu korin doono dhismayaasha degmadaasi Arabsiyo برصابك gobolka Gabiley oo goreyn baalkaasi aad kooban ka jeediyay ayaa waxa uu tilmaamay ahmiyadda uu dhismahan u leeyahay shacbiga deegaanka Arabsiyo waa markii imika saddexaadan xool ugu soo noqdo markii ugu horeysay waxaan ku yimi kormeer 4 maalmood kadib markii aan xilka la wareegay kormeerkaas oo daaraa inaan soo arko baahiyaha ka jira dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Gabiley kolkii aan joogay xarun dawladda hoose Arabsiyo degmada Arabsiyo dhammaan dadkii hadlay waxay ka wada hadleen kawaanka ka wada hadleen qaasatan dumarkii goobta joogay waxay aad ugu nuucnuucsadeen kawaanka dabeedna waxaan sii soo eeg bal kawaankan aadka looga cabanayo ay maaragtay sheegayaan dumarka iyo dhammaan dadka meesha ka hadlay ee mas'uuliyiintu ku jiraan duqo ku jiro dabeedna waxaan u yimi runtii meelan wiilgii arag waan filayn inay ka jirto Soomaaliland sidoo kale iyaguna waxa halkaasi aad la kooban ka jeediyay xogayaha fulinta dowladda oo degmada Gabiley taliyaha qaybta booliiska degmada Gabiley iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo maamulka Arabsiyo oo dhamaantood soo dhaweeyay dhismahan maanta kaabaanka laga dhagax dhigay مسؤولين حسب كلمية مقالة عربسية وقارهنا أوروك دليرة حسب كلمية تجمد سيا عربسية أيامات مناسبات بلارنا ويكون تاجريا مدحوينها جمهورية الصومال الآن خوقبت مقالة عربسية قبل كني قبل كترثن هالكاسو يقولين بكهالين مسؤولين حسب كلمية كنا عدليرتا أي واحد هذا اللي كمدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo gudoomiyaha dhalinyarada ee magaalada Arabsiyo Sportiga waxaan halkan taageero buuxda anigii bahdayda Sportiga ku muujinaynaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee waxqabadka dawladda waxqabadka iyo horumarka leh waxaan ku taageersanahay taageero buuxda ayaan ku taageersanahay waxaan halka wixii nabadgelyada khalkhal gelinayna anagu waan ka soo horjeednaa nabadgelyada wax korkortan la gali karaa aba yaraatee ma jirto marka labaad waxaan hambalyo u dirayaa shacabka Soomaaliland munaasabadii maalinta dawladda state ka May ee sida wanaagsan ee gobonimada looga dabaaldegay dalka iyo dibadiisa marka xigta dhalinyaradu waxay soo gudbid waa aayahooda iyagoo cid u danaynayn dan shakhsina aan u socon waxay u socdaa danta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland مسؤولين تنور كدليرتا أو كمدة هربا مسؤولين تنحسب كلمية عدليرتا أي سفر عرضها غير قضية مدحونها جمهورية الصوماليلاند كانوا مستعجرين وحقبت شنطة سنة وقت يقودها با صوماليلاند وأنا معانا إبراهيم تي في غرنكا قبلي